waxa ay ku mashquulsan tahay samaynta mid ka mid ah miisaska ay soo saarto oo ah dalab uga yimid macaamiil ka mid ah dadka ku xiran wax soo saarkeeda. Fardowso Cali Ibraahim oo ah arday jaamacadeed waxay miisas iyo agab kale ka samaysaa caagada la soo aruuriyay. miisaskaas ayaana hadda aad u soo jiita dad badan oo si toos ah u taga hoygeeda oo ah halka ay ku shaqayso. waxaan sameeyaa miisaska caaga ah anigoo u maray process dheer ah awal caaga aan soo iibsan jiray markii aan ku cusbaa sheegna caag soo iibsado laakiin alxamdulillah waxaan la soo heshiiyay adeer oo caaga ii keeno markuu caaga ii keeno kadib caagi waan dhaqaa waan qalajiyaa kadib caagta qaar waan jarjaraa oo miiska waan dheereeyaa qaar waan gaabiyaa waxaan u isticmaalaa sharootooyin kadib kool aan u isticmaalaa suuqan galiya kadib bacaan u talaa waan galiyaa. xirfadan ayay ku fikirtay Fardowsa si ay u samaysato wax soo saar iyada gaar ay u leedahay inkastoo bilowgeedii ay ka soo martay duruufo adag hase yeeshee ugu dambeyn markii ay garab istaageen qaar ka mid ah ardayda jaamacadeeda oo ay ku soo bandhigtay baraha bulshada ayay la qabsadeen macaamiisheeda. wajahad ila yaabaan markii aan koow soo iibsanay xataa waxaa jirta naagga koow ka soo iibsanay idhaahday yani caagan calaqaad u isticmaashaa suuq waliigata wallahi ma sha Allah dadka badan waxay gadka xaasaska ah aad iyo gataan had suuqi awalka hore yani caadi ardayda jaamacadda iyo wixii qalag had markaan Facebook soo dhigay dad badan ay gataan oo igu soo raaceen yani $30 ayuu qiimo ahaan ku kacaa miiska ugu yar oo ay iibiso Fardowso Cali Ibraahim waxaase dadka ku xiran qaarkood ay u arkaan qiimo aad u yar marka loo eego tayada wax soo saarkeeda. miisaskan waxaan ka arkay qadka internetkan ka arkay waa jeclaaday waa ka soo dalbaday way ii samaysay wuu fiican yahay wax oo wuxuu leeyahay jismi uu leeyahay wuu qurux badan yahay fadhigaaga oo adkeysan kartaa sharaxaad uu ku fiican yahay cuntooyinkana waa saaran kartaa aad iyo aad uu ii qanciyay. Fardowso iyo boqolaal kale oo dhalinyaro ah oo sameeyay isku day wanaagsan oo wax soo saar ma helin tallaabooyin ku dhiirigeliya in horumar wanaagsan ay ka sameeyaan hal abuurkooda.